سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيامها دعي مايو إلا أطون على مدود أركتد سيد النبي إنو شيغي صلى الله عليه وسلم. تونك على مدود وعلى مده واوينا كوي يريرا دمان تدوال أركي ما دام عاخر سمانكي لغجرو دغح باسو دعايا قيامه باسو دو وحاس أي كشيكيان لكن دعيتانك قيامها إلهي أو كلي أياؤك إنت عن موضوعنا قده سيقلين فضل الموقال كان ليك نصار صوتو ديرقلين بينون نقنيسا يإنان هوري سيسعنو سبسكريبنا نقيل لوبين maalmaha ka mid ah asxaabta oo sheekaysanaysa oo meel fadhida ayuu nabigu u yimi sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri maxaad ka sheekaysanaysaan waxa ay ku dhaheen arrimaha qiyaamaha ayaan ka sheekaysanaynaa goortaas nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam qiyaamuhu dhici maayo ilaa aad 10 calaamadood aragtaan kow qiiq samada ka imaanaya oo markuu Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nas hadha 'adabun alim calaamada labaad waxa weeye soo bixitaanka masiixu dajaal waxa uu wataa janno iyo naar qofka uu jannadiisa geliyo waa qof isaga raacay Ilaahay cadaab ayuu ugu bedelayaa qofka uu naartiisa geliyo waa qof isaga diiday oo waliba mu'min ah Ilaahay janno ayuu ugu bedelayaa calaamada saddexaad waxa weeye daabad dhulka ka soo baxaysa gaar ahaan buurta Safa qof walba waxa uu yahay ayay ku qoraysaa haddii uu gaal yahay kaafir ayay ku qoraysaa haddii uu muslim yahayna muslim ayay ku qoraysaa calaamada afraad waxa weeye soo bixitaanka nabi ciise calaamada kiristaanka ee saliibka ah ayuu jajabinayaa waxa uu dilayaa aakhirka beenaalaha masiixu dajaal calaamada shanaad oo lagu garanayo inuu qiyaamaha soo dhow yahay waxa weeye in ay soo baxaan Ya'juuj iyo Ma'juuj waa laba ummadood oo ku abtirsada wiilkii nabi nuux ee Yaafit labada ummadood mid kasta waxa ay ka kooban yihiin 400 oo kun Ya'juuj iyo Ma'juuj midima dhinto ilaa uu arko 1000 wiil oo isaga ka farcamay oo waliba qaangaar ah Ya'juuj iyo Ma'juuj Ilaahay adduunkan ayuu ku soo siideynayaa waa marka uu Rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala hatta idha futihat Ya'juuj wa Ma'juuj wa hum min kulli hadabin yansilun calaamada lixaad oo lagu garanayo in ay qiyaamaha soo dhowdahay waxa weeye qoraxda oo ka soo baxda meesha ay u dhacdo calaamada toddobaad waxa weeye dhul gariir ka dhaca bariga adduunka waa meesha ay cadceedu ka soo baxdee ummado iyo wadamo dhan baa la waayayaa calaamada sideedaad waxa weeye si la mid ah in dhul gariir uu ka dhaco wadamada reer galbeedka waa Yurub iyo Mareykanka dhulka ayaa la goynayaa calaamada sagaalaad waxa weeye wadamada carabta iyagana dhul gariir ayaa ka dhici doona calaamada ugu dambaysa ee 10aad waxa weeye naar ka soo baxaysa magaalada Cadan banka qiyaamaha ayay ku soo aroorinaysaa 10kaas calaamadood haddii aadan arkin dadka hawaalin adigana yaan lagu waalin qiyaamuhu dhici maaye laakiin waxa laga yaabaa inaad su'aal isweydiisid 10ka calaamadood inta la arkayo waqti dheer ayay qaadanaysaa nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam haddii mid ka mid la arko inta kale way israacaysaa tusaale ahaan wuxuu nabigu tusaale inoogu soo qaatay tusbaxa haddii la kala jaro oo la sii daayo siday dhammaantood isku raacayaan haddii 10kan calaamadood mid ka mid la arko intuba way israacayaan wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.